asxaabteyda iga raali noqda waxaan hay telefoon la'aan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي قالية ملك استوديو دويدا كجوكتا مان سلام يا فضلا هدي أي تاي مركي كوغوريسان صوبوغتي channelka subscribe inoo saara sidoo kale videoga like gare oo share gare oo la wadaaga saxaabtada. Asxaabteyda qaliga aad iyo aad baad ugu mahadsantiin run ahaantii sid ii gaarsiisaan 3,000 subscribe aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa. idinka la'aantiin halka maan taagnaaday idinka ayaa ilaahay ka soo halka ay soo gaarsiiyay aad baan idin jecel waxaan rajeynayaa intaay in ka badanna inaad gaarsiin doontaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh. asxaabteyda qaliga hadii aan kaga imaado halka mahad celintiini waxaan noo wada barnaamijkeeni aad horaba iga barateen ee toddobaadka iyo social media kaasi oo aynu ku soo bandhigi doona caawa arin aad iyo aad uga xumaaday maalmihii ugu dambeeyay social media haystay amaba aynu arkaynay amaba ka dhex muuqday. asxaabteyda qaliga waxaan kaga hadli doonaa barnaamijkeenan saddexda qodob ah waxaynu dareensanay waxaynu ogeyn iyo waxaynu sheegi doonto fanaanada. asxaabteyda iga raali noqda waxaan hay telefoon la'aan insha Allah marka telefoon soo qaato oo waxyaalo badan aragtina ogaatiin run ibeen waxa tahay insha Allah ana niga soo jawaabi doona. horta barnaamijkeenu ka hadlaynaa waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa farxaan yare iyo rasmilays oo kala tagay run ahaantii waxay maanta barteeda snapchat-ka rasmilays soo dhigtay in ay tiri waxaad leedihiin maxaa kugu dhacay ishiini baa igu dhacday. sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa waxaynu arkaynay oo ah maxaa la yiraahdaa inay ahaayeen dadkaas dad isku faraxsan isjecel waasaynu arkaynay inagu oo maxaa la yiraahdaa farxaan yare intuu Nairobi tagay ay rasmilays soo bilaakabay sidii adduunka u soo dhaweysay iyadoo jacayl iyo kalgacayl u muujinaysa farxaan yare iyadoo saatay haddana Hargeysa isku soo raaceen sidii adduunka loo soo dhaweeyay waxaan kamid ahaa dadkii soo dhaweynayay maanta ee farxadda la qaybsanay walaalahay rasmilays iyo farxaan kula faraxsanaa jacaylkooda. run ahaantii Hargeysa imaadeen mar ay hadlaysay waxay lahayd Hargeysa waxaan u imid ninkayga dartii isagoo iga codsaday inuu soo raaco Hargeysa waxaana ku ixtiraamay codsigiisii ahaa inaan u raaco Hargeysa. run ahaantii waa wax waxaynu arkaynay amaba inooga dhex muuqday waxa ay ahaayeen labaana aad iyo aad isku jecel kalgacayl iyo xub iyo inaba caadi ahayn halka ku soo bandhigay hadiyada iyo waxaan ku dhiyay wax kasta isku doonsiinay aad iyo aadna isku faraxsanaa boqolkiina boqolna waxaan ku dhiyay dasa isku faraxsanaa. waxaynu dareensanay hadaynu ka hadalno waxaynu dareensanay in farxaan yare iyo rasmilays la leeyay way kala tageen sidaynu muuqano ama ay rasmilays inoo sheegtay in wax kastaba ay noo sheegi doonto markay ku noqoto Nairobi iyadoo tiri moobilkii ayaa imika moobil ayaanan haysan balse laakiinse wax kasta waxaan idin soo wadaagi doonaa markan tago wadankii Nairobi. run ahaantii haddaan ka daba tago taa ay tiri ishiini baa igu dhacday waa run oo waa xaqiiqo jirta oon maxaa la yiraahdaa been aan ahayn in ishii dadku ku dhacday waayo waxa jira dad aan haysan nolosha maanta aad haysato ma aha in dadka u soo bandhigto noloshaada waxa qurux badan in noloshaadu ay private ku ahaato si aan isha bini'aadanku kugu dhicin. imikana waa waqtigii nabigu sheegay oo ishu xataa hadii ay waxa la yiraahdaa hadii wax wadka ka soo horeynaya uu jiri lahaa waxa jiri lahaa isha oo ka soo horeyn lahayd. asxaabteyda qaaliga run ahaantii aad iyo aad baan uga xunnahay waa wax aad iyo aad aan uga qiireysanahay in labaana saa u qurux badan aan maalin walba aragnay inay kala tagaan oo kala yaacaan. run ahaantii qof kasta oo social media ku jira taladan gaarsiinaya waxay tahay in uu noloshiisa khaaska ka dhigto bareefad balse laakiinse ninku waa inaan xaaskiisa keenin social media sidoo kale naagtuna waa inaan ninkeeda keenin social media waayo waxyaabahaas oo kala ayaa ku dhici kara. asxaabteyda qaaliga anigoo run ahaantii aan hadalka sii wadi kareen qiiraan ka qiireysanay lamaanaha quruxda badan ee kala tagay dartood iyo eedaan iga soo gaadhay dartii waxaan idinkaga tagayaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabteyda iga raali noqda waxaan hay telefoon la'aan insha Allah marka telefoon
soo qaato oo ogaa waxyaalo badan aragtiin ogatiin run ibeen waxay tahay insha Allah